gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jidhe ayaa ka hadlay gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajka oo maalintii saddexaad ku xayiran ba dhammaan gaadiidleydani xarumaha booliska iyo dawladda hoose isla markaasina lagu sameeyay shaqo joojin. haddaba gudoomiyaha gobolka Sool ayaa sheegay in sababta loogu sameeyay shaqo joojinta in bajaajleydan ay geysteen dhibaatooyinka kala duwan oo ay ka mid yihiin in dumarka ay dhibaateeyeen isla markaasina ay u geysteen falal amni darro. dawladda saad baan ugu mahadcelinayaa bajaajyadii baahida loo oran jiray faa'iido badan oo u qabtaan dhib badan negative iyo positive oo leeyihiin markaan positive-ka inoo dhigo xagga negative-ka dhibaato badan ka keeneen dawladda hoose go'aan wanaagsan bay ka qaadatay annaguna waan ku garab istaagnay go'aamay soo saartay go'aamada waxaa rabaa in lagula shaqeeyo oo dadka mulkiilayaasha ee bajaajyada leh ayna kula shaqeeyaan sababtoo waxaa dhacday in bajaajyadii hablihii ay moobiladii ka gureen oo gabdhihii ay nabadgelyo suuqa ku mari waayeen inay hablihii kufsadeen oo intuu nin soo qaado bajaajlaa uu dhibaato badan hablihii u geysto in dadkii nuglaayo in qof safar intuu shandad saarto laba waayo uu la cararo waxaasna waxa lagu control karaa inay sumad yeeshaan calaamad inay yeeshaan laba saddex maalmood ay xidhan yihiin macaankuna way ka yaraan lugtiina waad baranaysaan tamadii energyna waad qaadanaysaan exercise badan baad helaysaan laakiin shuruuc adag baa loo sameynayaa oo baasha lagu xakameeyo maxaa yeelay positive-ka inuu ka eeganaa laakiin negative-keeda batay taana waxaan intaas ku wargelinayaa مسعوكي ريال تيفي لاسعانود adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida